هي سليسة عبسة macallin tusaale ahaan hadduu Cidruus qof dhaawaco oo dhaawacaas laga bixiyo mag haddii oo u dhinto dhaawacii oo Cidruus geystay ma la iskugu darayaa diyada iyo qoonta mise midkood aa laga qaadaa واد ما سنت عبد الرسام وسؤال آدو ونكسن meeshaan su'aal aad u muhiim ah ayaa ku jirta oo u baahan in laga jawaabo waxaan wada ognahay haddii qof kale ta dhaawac u geysto qofkaasna uu u dhinto dhaawacii loo geysto dartiis diyada in qofka dhibka geysta laga rabo waan wada ognahay oo lagu leeyahay laakiin midda aan wada ogeyn wax ay tahay haddii qofka dhibka geystay ay qarash iyo lacag fara badan uga baxday qofkan intii uu dhaawac ahaa la dabiibitaankiisa iyo la tacaalitaankiisa haddii ay noqon lahayd in isbitaal la geeyo iyo haddii xitaa ay noqon lahayd in wadanka dibadiisa uu qaado markii qarash iyo lacag fara badan uu ka baxana oo qofkii dhaawacii dartiisa u dhinto lacagtaas ninka dhibka geystay ka baxday iyo diyada maxaa iska quseeya oo tusaale haddii ninka dhintay reerkiisu ay soo geed fariistaan oo ay dhahaan diyadiisii ayaan rabnaa ma loo xisaabinayaa lacagtii ninka caafimaadkiisa ku baxday oo diyadiisa ayaa laga jarayaa miyaa leeyahay mise labadooduba waa la isugu darayaa lacagtii faraha badneed ee caafimaadkiisa ama dabiibitaankiisa ku baxday iyo diyadiisaba waa laga rabaa cidaas oo waa la isugu darayaa intaas culimada hal la weydiiyo shareecadu waxa ay ka qabto waxaana hubaa in aysan dad badan oo muuqaalkan daawanaya aysan xaqiiqadeeda ama sida saxda ah aysan ogeyn dhammaanteen waxa u baahannahay in la ka jaahil bixiyo naloo bayaaniyo culimada su'aasha ha loo geeyo cid kastoo garanaysana ha nagu caawiso oo ha nooga jawaab marka waxaan rajeynayaa in dadkana daawanaya ay dad cilmi leh ama culimo ay ka mid tahay su'aasha jawaabteeda ayaan ka sugaynaa intaa markii laga soo tago filimka arday waxa uu dhaliyay hadalhayn aad u fara badan oo qaar bulshada ka mid ah ayaa ka soo horjeesteen waxa ay leeyihiin mataqaanaa wuxuu gudbinayaa afkaar qaldan horta waxyaabo qaldan waa ay ku jiri karaan laakiin sida caadiga ah dhacdooyinka uu jiliinka isugu socdo waxaad ka arkaysaa inay ka mid yihiin kuwa si caadi ah ama dabiici u dhac oo tusaale qaybtan u dambeysay waxaad ku arkaysaa ama aad ku daawatay wiilal mataqaanaa baraanki sameynaya oo marka koowaad ku guuleystaan mar labaadkii dhibaato dhimasho ah kala kulmaya waa wax dhaca bulshaduna ay sameeyaan una baahan in laga waxyi geliyo hadda qofkii intaan clipkan daawada ku degdegi maayo jilin noocaan ama baraanki noocaan inta kadib waxyaabo kale ayaa ka sii dhalanaya oo wiilashan mataqaanaa baraankiga sameynayeen mid kamid ah ayaa wiilkii wax loo geystay walaalkiis si qaldan iyagana mid kamid wax u gaarsiinayaan waxyaabaha kale ku jira filimka waxa kamid ah xiisada macalinku uu bixinayo oo runtii la dhihi karo waxay gudbinaysaa sawir fiican oo ka turjumaya dhaqanka iyo Soomaalidu sida ay wax ku kala qaadan jireen iyo sida ugu xirtami jireen waana meesha aan su'aashan aad u qiimaha badan ka dhaxelnay waxyaabo kale oo iska daraama ah oo aad ku qosleysina waa ay ku jireen haddaba muhiimadda muuqaalkani waxa ay tahay su'aashaasi inaan jawaabteeda helno bayaan sharciyan aan u helno mataqaanaa sida ay culimadu nooga soo jawaabaan ayaana ka war sugaynaa haddii aad halkan soo gaartay ha ilmaamin muuqaalka inaad like saarto asxaabtaadana u share garayso waa anigu Axmed Shawqa oo kale ku soo dhawaad page-kayga oo Filowsar salaamu calaykum